waxaan halkan idinku akhriyi doonaa insha Allah heshiis ay gaadheen labada xubnood ee ugu sareeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland. heshiiskuna wuxuu dhacayaa sidan. bismillaahir rahmaanir rahiim. gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar markii ay tixgeliyeen wada jirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka. waxay ku heshiiyeen kow in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhaxeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland. laba in la mideeyo guddoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada. saddex in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhaxeeyay siyaasiyiinta gobolada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn. afar in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland. heshiiskan waxaa lagu gaadhay magaalada Muqdisho 5 bisha 9 2021. heshiiska hadda ayay insha Allah tacaala gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku ku saxiixi doonaan halkan kadibna waa la idin la wadaagi doonaa. intaas kadib waxa ku xigi doona kelmad kooban oo ay oran doonaan mas'uuliyiinta hareeraha fadhiya gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku. waxa insha Allah tacaala heshiiskan daba socon doona kulan weyn oo ay iskugu iman doonaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland maalinta Talaadada ay bisha 9 tahay 7 kaasoo ka dhici doona insha Allah tacaala hoteelka Dikaale si ay dadku iskugu cafiyaan la iskugu laab xaadho isla markaana ay uga dhalato niyad samaan buuxda oo u dhaxaysa dadka ka soo jeeda Soomaaliland. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. hadda waxaan kelmad kooban siin doonaa waxaan saxiixi doonaa heshiiska labada dhinac insha Allah.